waxyaabaha qaar guusha lagu gaaro ee aniga aan ku gaaray oo maanta masib wanaagsan ku joogo oo adoon aan ugu baahneen kulay taariikhdeyda ma ka warqabtay dhibaato badan aan la soo kulmay maanta dadkii dhibaateeyay oo dhan ilaahay iga aray koow gabar ilaahay ku xirnaada tan koowaad gabadha haddaad shantaada salaad ilaaliso waalidkaadana aad baari u tahay adoon ku hor istaagi karo oo ku dhibaatay karo ma jiro wallahi يعني بارنمada ilaahay iyo baarinimada waalidka way isku xiran yihiin rida rabbi fi rida waliday wasaqatu rabbi fi saqati waliday dad waalidkaaga ilaahay caradiisa u baahan tahay waalidkaaga ka careysi hadad ilaahay farxadiisa u baahan tahay waalidkaaga ka farxi gabdhaha caqabado badan ay gaaro ani waxaan aaminsanahay gabar kasta way shaqeyn kartaa duruuf kasta way ka gudbi kartaa waalidkeedna way la saaxiibi kartaa maanta waxaa laga yaabaa gabdhahan inay qaarkood nolol farxad leh ka soo wada baxeen ee weligood dhib soo arkin dhowr waxaa jirta dad gurigooda talisa ka ah iyo mid loo taliyo iyo mid maalin walba dhehaysa habartaana ay dhibtay meel maba ka aadi karibo habartaa kuma dhibin adaa is dhibtay waayo habartaa waxay kula rabtaa gabar wanaagsan habarta aal guliisatada gabadheed inay fiicnaatay jeceshahay waa mid dabjirade marka habar balaayo hadaad aragto meel taagan waa laga cudubleystaa gabar balaayo soo ahayd marka adigoo gabar balaayo noqonin aad waalidkaaga waxaa loo noqdaa baari cid kasta oo ku dhibaateynaysan dhagaha laga xirtaa keep going allaabo ama baaya waxa igu sameeyay wax wanaagsan waayo cashir ay yihiin waxbarashada iyo noloshaada inaad hormariso qalbiga ka yimaata hadaa buug qaadato oo baxdid oo macalinka u tagtid iskoolka fadhiisatid maskaxdii ay ku maqan tahay meel kale ama faaraxa noqoto ama xaafado kale qalbigiina oo waxbarasho u soo jeedo hormar see adiga rabtaa waalidkaaga see u tacaamuli kartaa see u nasiin kartaa waalidkaaga aniga waxbarashada waan ku soo dhibtooday shaqo waan ku soo dhibtooday xiriir saaxiib iyo walaal iyo kulli waxana dhib soo arkin male maantane dadkaas oo dhan ima dhibaan ilaahay iga guuleeyay hooyaan ahay caruur haysato waan shaqeeyaa waana la ii shaqeeyaa waalidkayga ducadiisaan aaminsanahay iyo sadaqada inaan intaas ku gaaray maalin waxaa dhacday waxaan arkay aabbo waayeela aabbahaas waayeelka ah jidku taagnaa duruuf aad iyo aad u weyn ka muuqatay qof waa taqaanaa markuu u baahan yahay wajigiisa ma wanaagsana faruurihiisa xataa daray ahaayeen aabbihii baabuuraan wada waanaag istaagay waxaan ku yidhi adeer maxaa qaldan uu hadli waay ilan waa qof gaajadii ridatay oo meel fadhiistay aabbihii markaan la hadlay la sheekaystay ilmo waxaa u jooga gabdho waxaa u jooga gashaanti ah iyo wiilal waliba ka sii daran waalidka macnihiisa dad aqoon ilmahaas gurigii aan waday aabi waa geey wuxuu u baahnaa in waan ka caawiyo gurigii aan taga maxamed dabjira waa dhax fadhiyaba oo feero waaweyn adeer waxaan waxay ahaayeen adeer anaa dhalo yar waa caasiyaa adeer adiga waalidkaaga see ula tacaamuli jirtaan ku yar ilaa meesha ku jirtaa moogta quraanka noo sheegay wax walba adeer waalidkaaga adisa isku heedeen ani waalidkayga ma soo korinin mana is arki jirin baadiyaha jiri jireen waana dhintay waalidka xiriirka aad ka jartay ilmaha ka jirteen aan ku yiri waxba u shalay ayakuna waxaan u sheegay waxaan ku yiri waalidkiin sida ula dhaqanteen kuwiina ka fisha aan ku yiri sida yeesha lagu yeelo waalidka ku duceeyaan marka gabdho halka talo in ku darsanaay waxay tahay maadaama barnaamijkan gadaal ka imaadeen wax badan ka fahansaneen wixii dhaafay gabar kasta waa ordi kartaa adoo ordaysidna waa ku fikirtaa hadaa kuftana waa kici kartaa horta taas inaan niyada gelisaan ku ilaahay la sheekaysta qolka adiga waa seexan kartaa soma habeenku waa bixi qolkaaga markaa tagtid waa seexane telefoonka intaada qabsanin laba rakac salaatul xaaja la dugtaa haday dhibaato ku hayso
haddaad nimcaysan tahayna laba rakac salaad shukri la dugtaa haddaad faarax balansantihiin guurna laba rakac salaad istiqaara la dugtaa haddaad shaqo u baahan tahayna laba rakac salaad xaaja ama istiqaara la dugtaa ilaahu haday qeer ii tahayna iyo xij haday shar ii tahayna ilaahu waa markaa heshid haddaad la'dahayna ilaahu rabbi raxmaan oo tala adaan ku saartay isii shaqadaas markii aad ilaahay la sheekaysato wax badan boqolkiiba boqol way ku hagaagayaan waalidka waa loo tagaa wax kasta waxa la yiraahdaa aabi hooyo ii duceey ducadii waxaan aaminsanahay dhagax xataa dooyoo maadin iga bixi ee burburin karto shukaansigan oo sanadkan jiran iska ilaaliyo gabdho yar yar aan aad ugu jeedaa mumkin waan ugu weynahay kuwana waxa safkan isku la jirnay jaamacayaashan wada shaatiga wata ma wada wanaagsan ogaada wallahi dad badan waxa jira aan gobol ka shaqeeyo joogan maalin walba waxaan isku dagaalnaa naag fiican magaalada ma joogto warkaale kulli maada xumeys xalimooyinkan magaalada ordaaya maada wada xumeysoo wada xijaabka wadaan anda waxay yiraahdaan anaga ma xumeynina ayaga xumeeyeen hadduu faarax ku soo waco waqtigaaga ka muhiimsan meel lagu balamiyaha aadin abay gabdhaha quruxda badan wax badan oo waxa jira dhibaato oo magaalada ka socota laana waxa mararka qaar jiri horto caqabado ah ina gurigiina qof kula kulmi karin caqabad ah inaadan yaani guriga bi'ada deganta ku saamixayno qof kugu yimaado laakiin hayo walaal waa saarkeena insha Allah anaan ku soo sheegay meel tag fadhiiso ku balami insha Allah bidmilaahi kariim gabdhayga quruxda badan ilaahay ha lagu xirnaado shanta salaad dad ilaaliso sharaftaadana ilaaliso you can keep going every day is new day abay waxaan ku leeyahay jaaniskaada ka faa'iideyso wajigaada quruxda badan ha luminina salaamu calaykum.